waxaa rabaa inaa waxyaalo oo ku faa'iideeyo waxyaalahaas arkaysid. Kuwaas kore waa kaniinyo hooyada oo naaska nuujinayso ama hooyada cusub oo kale u fiican yihiin. Kuwaanitana waxaa waaye waxaa ku qasan kartaa juuskaada, waxaa ku qasan kartaa biyahaada cad, wax kasta oo walaahi cabaysa ku qasan kartaa. Kuwaasaytana waa kuki la cunaayo. Waxyaalahanito waa waxyaalaha oo naasahaada caano badan kaaga keenayo. Caleenta sita ay idin tusaayo waxaa la cabaa markaa oo uurkaada uu yahay 36 week ama 8 bilood markaa gashid la cabaa. Sababtoo tahay ilmaha dhaqso calashaan waxay ka caawinaysaa dhalmada, xagga dhalmada ka caawinaysaa si aad ugu rafaadin cunuga dhaqso ifka calashaan markay foosh ku qabato uu cunuga ka imaado camal ay ka caawinaysaa. So kuwaas caagas ay idin tusay oo like $13 ku qorantahay aad iyo aad u fiican, especially marka dhishid gudaha way ku xanuunaysaa. Marka caagaas oo kale camal biyaad ku shubanaysaa, biyo qandacad ku shubani uu ku sahlina howsha ku sahlinaya sifo because meesha dhaawac ay ku tahay wax qofku xanuunsan yahay, dhaawac ay ku tahay ma loo baahno in gacantaada aad ku taabatid, just biyo qandac leh isku shubaysaa. So waxyaalahaasito mashiinada waxaa waaye oo naasaha caanaha looga listo. Geedka sitan markii caanaha kulli caanahaada listid oo kale camal mathalan aad caanaha ku keedsanay filinjeerkaad gashanay markuu cunugaada u baahdo ayaad siinaysaa. Kuwaasaytana waxaa waaye kuwa caanaha sifa ay kaaga dareerin loo xirto. Kuwan aad taabanayana waxaa waaye marka oo ilmaha aadishid oo kale camal naaska ibta aad iyo aad ku xanuunaysaa. Waxyaalahaasayto aad iyo aad u fiican tahay inaad isticmaashid oo waxay ka caawinaysaa bahalkii xanuunka ka kala yareynaysaa. Actually xanuunka oo ku haystay ka kala yareynaysaa. Qaybtaanitana qaybta masaasadaha waaye. Masaasadaasayto oo nourish ku qoran tahay way fiican tahay, aad iyo aad u jeclahay. Mathalan hadduu cunuga naaska ka diido kala camal oo baaral siinayso kala camal aad iyo aad u fiican tahay because waxay ka caawinaysaa inaa oo aad wuxuu dareemayaa calashaan sida naas oo kale camal uu dareema cunuga. Kuwaanitana waxaa waaye daawooyinka oo ilmaha yaryariiska ilmahaada markii ay qandheer qabato kala camal shurubo yaryariis waxaa jirto oo ayaka loogu talagalay oo infant ay ku qoran tahay, ilmaha yaryariiska loogu talagalay bilooyinka jiro loogu talagalay ilaa uu ka gaarayo 2 sano meelahaas la siini karaa jiro. Marka kuwaanitana waa qaybta oo oo ilmaha kaasaytana aad iyo aad u fiican yahay. Sanka wasaqda ka soo guraya aad iyo aad u fiican yahay kaasayto. Sanka wasaqda ka soo guraya. Make sure inaa marka adiga hooyo cusub aad tahay ama qof oo wax soo dhala aad tahay way kala duwan tahay. Marka hooyo cusub tahay waxyaalo badan oo waxaa jirto aadan aqoonin ama aysid waxaanayta dhibaato ama cunugeyga u keenaa. Biyahaasayto koro idin tusaya aad iyo aad ayakana u fiican yihiin, especially markii oo cunugaada uu calool xanuun dareemaya ama sideeda uu qandho u dareemayo ka xanuunsanayo kala camal. Biyahaasayto dasiisid caafimaad uu ka helayaa, wayna u fiican yihiin ilmaha. So waxyaalo badan oo waxaa jirto awlaadaada adiga calashaan markaa hooyo cusub tahay kala camal waxyaalo waxaa jirto aad ka baqayso waxana ama waxyaalo waxaa jirto aadan aqooninba. So waxaa kugula talinayaa wax kasta oo cunugaada u isticmaalaysid waxaa ka aqrisaa inuu wax barafuun ku jiro. Barafuun hadduu shayga ku jiro ma fiicna, caafimaad ahaan uma fiicna. So waxyaalaha qaarkood iska ilaali inuu barafuun ku jirin, waxyaalaha qaarkoodna ka fogow because barafuunka xasaasiyadu ilmaha ka qaadaya. So shaambooyinkaas aan tusaayo hoose waxaa waaye ilmaha masaasadahooda lagu dhaqaa. Shirkadda sayta hadeertaan tan oo kamarada ku soo dhaweeyay sayta aan aniga hadda tijaabinaya shalay soo gatay. Hadeertaan maanta waxaa waaye Ramadaanka 23 oo maleena maanta inuu noo yahay
maanta aduubayo khamiis waaye علشان maanta codka asaarayo bas shalita arbacada ani waxaanito dhan soo gatay marka yes shirkadaasaytana aad waxaa u isticmaalo wiilkayga u isticmaala wiilkayga weyn aanista la dhahaa ayadana way fiican tahay so anigana mid wiilkayga yariska oo beebiga exam u qabaa so halkaaniita dheebarka imaada aniga dheebarkaasiita isticmaalnaa so sayska wiilkayga waa ka waayay oo wiilkayga roon oo sanadkii 9 bilood jiro wuxuu isticmaalaa size 8 eedoo dhan waa ka waayay soo kana usoo gaday marka kaasito biyahaasaytana gabdho aad iyo aad u fiican yahay kalaftigooda caanaha ayay kordhiyaan kalara badanay ku imaadaan kuwaasaytana waa shaambiyooyinka oo beebiyaasha ilmaha loogu dhaqo waaye shaambiyooyinka oo beebiyaasha ilmaha loogu dhaqo ayakana kuwaasaytu way fiican yihiin because beebiyaasha bis dharkooda loogu dhaqi karaa علشان ilmaha yariiska dharkooda loogu dhaqi karaa so sidaas waaye waa ku mahadsantihiin daawashadaada quruxda badan muuqaalkayga waa dheeryahay marka waxaa idin rajeynayaan daawasho wacan idin leeyahay please subscribe to isaar like to isaar waana mahadsantihiin dhammaantiina